السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسلامتين ميل البوجوكتين كسو هذا channel كيغا ما أنت برنامج كيغا وحان ربا إنان كسو قاطو سدح سيابات oo laga yaabo inay macna isbedel ku keento immigration ka Canada marka waxaan ka codsanayaa hadii adiga aad rabtid inaad wax walba Canada ku saabsan nolosha Soomaalida iyo qaxootiga waxaan ka codsanayaa inaad hadaad ku cusub tahay channelka subscribe gareysid saad ula socotid wax walba soo kordha saad la socotiin maalin dhaweed bishii hadda aan soo dhaafnay waxa ka dhacday doorasho wadankan Canada doorashadii waxyaalo badan ayay sababtay marka waxaan rabaa saddex siyaabood oo muhiim ah immigration ku saabsan inaan idin la wadaago oo laga yaabo in isbedel macnaha uu ku imaado marka doorashadii markay dhacday waad ogtihiin liberalka oo hogaaminayay wadankan laga soo bilaabo 2015kii oo waxay ku hogaaminayeen waxa la dhaho majority rule laakiin doorashadii hadda dhacday codkii la rabay may keenin marka sidaa daraadeedii waxa laga yaabaa waxyaalo badan inay isbedelaan doorashadii markay dhacday waxa la rabay inay helaan 280 iyo something cod inay helaan la rabay maysan helin waxay heleen 150 iyo dhowr cod marka taasi waxay sababtay waxa la dhaho in ay sameeyaan power sharing ama macnaha wax walba ay rabaan مثلا haday rabaan in wax ay macnaha process gareeyaan ama ay legal ka dhigaan ma noqonayso inay macnaha say rabtay u noqoto baarlamaanka sababtoo dadka markay wax soo jeediyaan waxa la geenayaa barnaamijka baarlamaanka hortiisa way u codeynayaan markay u codeeyaan waxa laga dhigayaa wixii legal macnaha si sharci ah marka haday haysan lahaayeen 180 iyo intaas kursi uma baahnaan lahayn macnaha in ay ka doodaan sababtoo ay waa majority rule warkooda ayaa la yeeli lahaa laakiin hadda suuragal maahan wax walba u baahan yihiin waa inay weydiistaan baadiyada kale macnaha mise ka soo horjeeda in ay macnaha ay u saxiixaan ay garabkooda istaagaan say macnaha ayagana waxay siinayaan waxyaalo muhiim ah maadaama ay wadanka hogaaminayeen marka taas markan ka soo gudbo immigration ka waxa macnaha wasiir u ahay ninka wada taqaaniin ee Soomaaliyeed Axmed Xuseen doorashadii markay dhacday ka bacdi Axmed Xuseen waa laga wareejiyay xilka 20ka bishan aan ku jirno November waxa loo dhiibay immigration minister laga dhigay qof la dhaho Marco Mendicino kaasoo laga dhigay Minister of Immigration, Refugee and Citizenship ninkan waa nin 46 jira wuxuu macnaha ka soo shaqeynayay qaybta prosecutorka loo yaqaano ama sharci dejiyaasha muddo ka badan 10 sano ninkan ayaa laga dhigay immigration marka minister marka waxa laga yaabaa marka in saddex siyaabood ay isbedelaan san hore u sheegay saddexdaas siyaabood waxa kamid ah liberalka waa qaybta aad qaxootiga u jecel u soo dhaweysa 2015kii markii la doortay macnaha raidka ama inta shakhsi ee la keenay jiray wadanka qaxootiga waxay ahaayeen 260,000 oo qaxooti ay qaadanaysa sanadkiiba Canada markii ay ku guuleysteen 260,000 ilaa waxay keeneen 350,000 oo qaxootiga ayay macnaha sanad walba soo gelinayeen marka say u sii kordhiyaan maxaa la barnaamijkooda ay ku taageerayaan dunida inteeda kale waliba macnaha wadamada iska dhibaataysan oo dadkooda u baahan in macnaha nabadgelyo la siiyo sida Soomaaliya oo Syria Iraq oo kale iyo adig wadamo noocaas ah 2021ka waxay balan qaadeen inay keeni doonaan 360,000 oo qaxooti ah marka balanqaadkoodii ay sameeyeen waxa ka horeysay in macnaha Ottawa xarunta baarlamaanka meesha ay ku taalo ay horgeeyaan macnaha baarlamaankii uu u codeeyo oo uu dhaho waxaan waa uun saxinay waa ku raacnay baarigan marka say u helaan ama se ay macnaha barnaamijkaas ugu guuleystaan waa in baari kale NDP da ama se mid kale ay heshiis la saxiixdaan oo ay wax siiyaan marka taas waxa laga yaabaa in isbedelka koowaad uu noqdo 2021 oo immigration ku imaan doono
midda labaad oo laga yaabo waxaa waaye dadka PR-ka haysta ee wadankan jooga markay mise hadda ka bacdi heli doono mise haddaba soo galay PR-ka apply grantisi waxaa laga qaadi jiray $630. Libertyga markay ku guuleysteen doorashada waxay dhaheen apply granta mise applicationka dadka laga qaado $630 aad bay u badan tahay. Waxaan ka dhigaynaa free application, macnaha in aan free ugu dhigno qof walbo PR ka xareynayo say dadka dhan, macnaha sababtoo hadda warbixin aan aqrinay mar dhaweed waxaa hoos u dhacay dadka qaadanaya citizenshipka ama noqonayo muwaadiniinta wadankan. Laba siyaabood ayaa loo aaneynayay. labada siyaabood waxaa ka mid ah xagga dhaqaale darada iyo mid labaad oo ah xagga aqoon darida. sababtoo waxaa waaye waxay ku xiran tahay inaad muwaadin ka noqotid wadanka Canada. waxay ku xiran tahay in luqadda Ingiriiska aad ka haysatid macnaha waxyaalo oo pointy ah ama at least macnaha adiga wax la dhaho speakingka iyo readingka writingka, macnaha wax noocaas ah ayaa la rabaa, macnaha inaad pointy ka haysatid. marka dadkii dad u badan yihiin dad waaweyn oo wadamo kale ku soo koray oo luqadda Ingiriiska looga hadlaynin, waxaa dhib ku noqotay in luqadii ay bartaan. sidaa daraadeedna macnaha marka ma ay tagaan meeshii citizenshipka ama lagu qaadanayo imtixaankii la galayay ay ku dhacaan. markay dhacaan waxba la siin waayo ama la dhaho mar kale kusoo noqda. marka waxaa la yidhi decline ama hoos u dhac ayaa ku yimid qaybtaasi. marka waxay dhaheen weli taas kamaysan hadlin, weli sideedii macnaha in qofka uu soo bixiyo shuruudaha luqadda, laakiin xagga lacagta oo dadka dhaqaale darada macnaha oo xoogaha qof walba biil ayaa ku taagan suuragal u noqon weysa inuu bixiyo $630. waxay dhaheen waxaan isku dayaynaa inaan ka dhigno maxaa la free, qof walbo macnaha waxba laga qaadin oo iska apply gareysto. marka maxaa la janjiga kale midda kale waxaa waaye dad badan baa jira wadankan matalan waxbarasho u yimid iyo shaqo u yimid oo baasaboorkoodii wadankooda ku jooga. marka waxaa la yidhi dadkaas ayagana waa loo doodayaa haddii ay joogaan wadankan aan weligoodna macnaha ka tegin muddo dhan 1,095 maalmood, waxay xaq u leeyihiin baa layidhi inay xareeyaan permit residentiga, macnaha physical wax la dhaho inay macnaha joogaan wadankan oo aysan meelna uga tegin 5 sano amase 1,095 maalmood. taasna liberalka wuu soo bandhigay, wuxuu yiri waan ka doodi doonaa, waxaan horgeyn doonaa baarlamaanka si aan u baasino. midda u dambeysa waxaa waaye barnaamijkii aan kusoo qaadanayo wax la dhaho Atlantic Immigration Pilot Program. programkan waxaa la soo saaray 2017 wuxuuna ahaa muddadiis 2 sano. programkan wuxuu ku saabsan yahay dadka macnaha xirfadleyda ah xirfada yaqaano oo u yimid wadankan in ay ku shaqeystaan baa waxaa loo ogolaaday in 2 sano macnaha ay 2 sano macnaha 2017 2019 yaa loo ogolaaday, laakiin 2019 kii hadda waxaa loogu daray 2 sano kale. marka barnaamijkan asagana waxaa la yiri hadda macnaha muddadiis waxay ku egtahay 2021. waxaa waaye barnaamijkan asagana marka maadaama qofka wadankan uu yimid si sharciya uu ku yimid laakiin wadanka uu joogay in asagana macnaha muddo intaas la eg uu taxi bixinayay, maxaa la population wax kusoo kordhiyay oo skillsna uu leeyahay. sorry waxaa kaloo ka iloobay, waxaa ku jirta ardayda ku timid ardayda ka timid macnaha international student wax la dhaho mise ardayda caalamka ka timid meel walba oo wadankan wax ku baratay oo ka qalin jabisay oo skills la, macnaha qofka markii wadankan uu wax ku barto oo skillskiisii waa loo ogolyahay inuu ku shaqeysto. marka 3 sano oo waxa la siinaya work permit ah. work permit kaas marka maxaa la iyo markuu dhameysto ka bacdina wax maxaa la PR buu macnaha apply gareynaya permanent residentiga. marka total ahaan barnaamijkan waxaa waaye
waxa مثلا qofku banaanka uu jooga skills waaye shaqo raba inuu meeshan u yimaado pilot kaas immigration pilot wax la dhaho wuxuu u baahanahay marka suu wadanka u imaado in uu haysto company hire gareeyay macnaha markuu submissionka uu sameynayo warqadiisa hire-ka uu soo apply garanayo visa wuxuu soo dalbanayo waa in ay ku jirtaa macnaha in qofkan company Canadian ah macnaha isla markii wadanka san u yibada ay hire gareynayso ama shaqaaleysiinayso marka hadda waxa loo doodaya maadaama qofkan uu skills leeyahay oo aqoontiisa macnaha loo baahiyay in wadankan wax ugu qabto waxa la yiri uma baahna in faylkiisa ay ku jirto in company Canadian ah ay macnaha shaqaaleysiiso oo macnaha ilaado anaga shaqaaleysiinay ninkan wadankan marka imaado anagu noo shaqeynay inay macnaha barnaamijkaas maashi laga saaro qofka si caadiyan asagu u iman karo sababtoo qofka markuu barnaamij noocaas uu ku yimaado waxa waaye warqadiisa work permit-tiisa waxa lagu qorayaa company-ga magaca company-gaas lagu qorayaa company-gaas markii lagu qoro macnaha company kale mise meel kale uma shaqeyn karo wuxuu noqonayaa qof restricted ah xorriyada laga qaaday ilaa work permit-kaas oo ka dhaco marka hadda qofkan marka free choice si macnaha xaq loo siiyo in waxay noqotay in macnaha loo garto in asagan xor laga dhigo freedom company-ga haday isku dhacaan hataa macnaha meel kale uu shaqo u doonan karo wadankana laga celin karin oo saasna macnaha wuxuu rabo uu ku raadsan karo oo macnaha hadii ay tahay deganaansho iyo hadii kale wax kale ay tahay ama shaqo ay tahay marka igra la rag baa igu dhacay marka barnaamijkii waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan oo dhan hadda aan sheegayo waxay noqonaysaa in macnaha baarlamaanka wadanka Canada la horgeeyo macnaha waxaan qorshahan waxa soo saaray ururka wadankan hogaaminaya oo la dhaho Liberal Party-ga marka waxa ay rabaan way laakiin wili sharciyan may noqon ma la baas gareynin marka si loo baas gareeyo waxay noqonaysaa inta ay qaadaan sharciyadaas ay horgeeyaan baarlamaanka laga doodo la soo baas gareeyo ka bacdina qof walba ay arintaas qosayso saas uu ku imaado marka kullay saad ula socotiin wax walba isbedel ku imaan doona wadankan iyo xagga immigration-ka iyo nolosha Canada iyo qaabka Soomaalida ay nolosha wax walba ku saabsan wadankan waxaan kullay barnaamijka waxaad kala socon doontiin channel-kayga aad u jeedin marka kullay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe gareysid macnaha barnaamij walba cusub oo soo kordha aad mar walba xilli walba aad ula socotiin waadna mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.